السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. دمانتي وين السلام سو الدوادة سيدي لي هاي حالتي نكور رمى ما شاء الله وأنا قد بصل الله بالله قلتي شو كان بيسي لما هاي هاي هورا عبين هوري حالة يوم باني دي كم مقنعين ما شاء الله هذا 10 كسرات بحناي وحقولي hawlo badan baynu qabanaynay haddana waxaan jeclaysanay inta waqtiga yar ka hadhay inaan hay'atoy aan idin la wadaagno casharkii aan idinka ballan qaadaynay maasha Allah soo dhaw rashid waxaan leeyahay horta walaalada soo dhawaada dhammaan inta maaragtay la socota barnaamijyada insha Allah marka barnaamijkan waxaan ugu magacaabnay barnaamijka baraarujinta bulshada waa PPP insha Allah waxaan la doonaa marka dambe 3 biyo iyo triple B marka barnaamijka marka dambe inta la socota videoga daawata waxaan la doonaa barnaamijkii triple B ama BBB barnaamijkan BBB waxaan ugu talagalay inay dadku ka faa'iideystaan dad badan caawana waxaan ka hadlaynaa barnaamijkeeni ahaa familiyada kala qaarmay ama maaragtay burburka ku yimid inaan maaragtay ka hadalno siyaabo badan oo maaragtay uga faa'iideysanayaan haddii markaa uu maaragtay family burbur ku yimaado sidii markaa ubadka loo wada qaban lahaa ama ubadka maaragtay maskaxdooda loo korin lahaa waayo waxaa la yidhahdaa waxa lagu qiyaasaa dadka maaragtay 100kii family 80 carruurtooda waxay noqdaan kama soo kabsadaan dhibta burburka ku yimid maskaxaan kama soo kabsadaan marka 20ka kale waa 20ka qof ee maashadka ee dadaalay ee maskaxiyaankooda maskaxda ka dhisan ee carruurtooda aan maaragtay waxyaabaha maaragtay aan maxaa raacin laakiin isla carruurtii mar walba isla haya oo muddo inaan kala maqnayn maxaa leedahay marka aniga horta iga yaraad lahaada caawan yar xanuunsanaya cashar waa ka soo baxay xoog badan baa xanuunaya maasha Allah haddaan wax gifo maxay hay'atay waan israeli gelinaya dadka nagu cusub aad iyo aad baan soo dhaweynaya asxaabta nagu cusub ee weliba ka yimid team Racho amba jiilka cusub aad baan idin salaamaya soo dhawaada ta xigta hawshaan caawan ka sheekaynayna waa sida uu sheegay burburka familigu separate-ka amba kala taga dadku markay kala tagaan aad buu u dhibadan yahay haddii carruur la haysto waayo haddii dee keli la ahaa laba qof oo dee caadi ah oo aan carruur isu lahayn ay yihiin oo ay kala tagaan dhib ma laha qof kastaaba intii ku dhacday wuu kasoo kaban karaa laakiin reeraha familiyada ee carruuraha haysta burburkooda kama soo kaban karaan muddo dee carruurtooduna kama soo laaban karto dhibaatada gaarka waxaa gaara carruurta damage aan caadi ahayn inay maskaxiyan wuxuu noqdaan carruurtii fahamka waxbarashadu ku yaraato dabeecaddu ka xumaato isdhexgalka carruuraha kale iyo maxay haytay saaxiibtinimada waxa loo yaqaano ay carruurtaasi aanay waxba ka aqoonin amba ay ku yar tahay waxyaalo badan oo carruurtii ayaa soo gaaraysa taa waxa keena haddii hooyadii iyo aabihii kala tageen ayagaa kala tegay laakiin in ilmihii lala kala tago ma aha ilmuhu wuxuu u baahan yahay maskaxdii baa lala kala cararaya marka baabadii iyo aabihii iyo hooyadii hadday kala tageen waa inay carruurtii hareeraha hayaan ay koriyaan maskaxdoodii niyaddooda ilaaliyaan inay macnay dee wada korinayaan ay carruurtii tusan carruurtaas markaa si fiican bay u koraysaa laakiin haddaa istiri gabadhii ay isleedahay ninkii waa kala tagteen ninkii burso eri waxaa kugu leeyahay carruurtaada la soo hadh waxba ma qaban kartid aabuhuna sidoo kale aabuhuna waxaa leenahay sidoo kale hadduu markaa uu la ficiltamo oo maaragtay ficil anuu meesha wadina yaalla aanu maaragtay aanu eegin aanu waxyaaba maaragtay aragti dheer ama aragti fog aanu yeelanin haddii markaa uu maaragtay dhibaatadii ka dhacdhacday iyo wixii markaa familiga ku burburay ay dabada sii hayaan isaguna waa nafuur tabasho wado maxay ahayd waxaa ku khasaaraysaan beertii cusbeyd ba khasaaraysa noloshii cusbeyd ee markaa aad maaragtay meesha ka timid ciyaalkii markaa cusub ah yes sorry marka waxaa loo baahan yahay in maaragtay uu dulqaad la sameeyo in maaragtay la kala qabto in maaragtay idinkoo kala degan oo maaragtay kala qaaran haddana aabihii muuqdo mar walba iskuulkii ciyaalku ka maqan karayo maalinta kulanka waalidiinta la iman karayo
inuu yimaado maahane maalin walba intay hooyada iskuulka geyso kasoo qaado inay kulamada haddana maaragtay haddana tagto wax macnaa ma sameynayso ilmaha waxa ku dhaca hooyada iyo aabihi hadday tagaan kala tagaan waxa ku dhaca dad nafsi wax la dhaho wax kasta wuu u nugul yahay iskuulka waxbarashada si fiican uma dhiganayo caruurta yaryar kaftankooda iyo dacayadooda uma adkaysan karo wuxuu jecel yahay had iyo jeer inuu gooni iska fadhiisto inuu isagu isla sheekaysto marka waxa ugu wanaagsanna burburkaas faamiliga burburay ilmihii uu arkay hooyadii oo gooni iska ordaysa amba aabihii gooni iska ordaya ilmihii markaa waxa ku dhacaya qaadasho ilan faamiligu kusoo dhex koray markii hore wada jooga iminkana way kala tageen ilmihii waxa ku dhacaya qaadasho waagii kama soo kaban karo ilmihii isma kala dabooli karo wuxuu yar yahay marka waxa aan kula talinaynaa faamiliyada noocaasa amba kala taga waxaan kula talinaynaa ha is-oranina waa kala tagteen haddii caruur meeshii joogto waa inaa caruurta niyadda u qaboojisaan waa inaa caruurtii wada korisaan waa inaa haddii aad doonaysaan adna guurso laakiin caruurtan ayaa idinka dhaxaysa iskuna keen qasbaysa caruurtan sida physicalkeeda u dhisi lahaydeen niyaddooda usoo kicin lahaydeen waxbarashadooda ay active ku noqon lahaayeen ku dadaala hadda ka hor baa waxa dhacday 2017 bay ahayd ayaa inayaba glass inankayga yar ku jiro la dhiganayay kabacdi iyagoo la isiriyanayo ayuu kaygu dhacay kaygu markuu dhacay wuu kii yaraa adinkiisa intuu soo qaaday kaygiyo jiifa ayuu dhakada ka saaray kii oo dhacay oo dhakada adin lagaga sii qabtay ayaa xanaaqay waa kayga markuu xanaaqay buu kii yaraa lamuu dagaalamin laakiin afku kala hadla wuxuu yidhi adinkeena maxaa ii keenay haddaad mar dambe waxaa samaysid buu yidhi laban ku kala jaray inankii yaraa macallinkii umuu sheegin isagii iskamuu celin qof kalsooni qaba maaha waa qof halkan ka buke big buu yidhi iskuulkii buu ka baxsaday kayintuu galay meena aan la arkaynin oona socdoonayn qof islaama baa gala ayuu ilmihii yaraa shab isku siiyey waa dadka 9 meelahaas halkii buu galay anagii baa la soo wacay ilmo yar bay isjiideen kabacdina kelmad buu ku yidhi ilmihii wuu baxsaday waxa la dalbaday ilaa iyo diyaarado baarayo ayaa la dalbaday waxa ku ilmihii 2 saacadood oo dhowdhow baa la baarayay kayn yar oo aan cidiba u aanaynin qof baa ku jira ayaa laga soo helay markaas annagina naloo yeeday oo la yidhi ilmaha waxa ku yimid bromal family abihii hooyadii waa kala tegey burburkii reerkooda ku dhacay buu niyadda wax ka noqday waa maskaxda ayuu wax ka noqday marka waxba ma qaadi karo waa la sasabayaa waxbarasho kuma fiicna saaxiibtinimo kuma fiicna waxa weeye waa xarig lama sitaan waa qofka yar halka iska taaganaya wax iliyaal wuxuu kala garanaya aana jirin marka anigu taasaan usoo taagnaa waxaan ogahay caruuraha yaryar ee aabahood iyo hooyadood kala tagaan inay cuqdad nafsi ku nool yihiin inaanay haysanin kaalintii buuxday ee hooyo inaanay haysanin tii aabe inaanay haysanin farxad buuxda qofkii yaraa inuu liigayo uu daalan yahay niyadda ka daalan yahay ayaa jirta marka qofku muhiimka waxay tahay in horta fahantaan waxa ka imanaya aqoon xumada ka imanaysa ilmahaaga qaar baa jira xitaa waxa jira qaar maxaa isku kaaja marka hooyadinka aad badkala tagaan xanuunan noocaas ku yimaadaan maskaxiyan xanuuno badan bay ku yimaadaan oo maskaxda marka muhiimaddu waxay tahay waxaanu ka hadlaynaa ilaahay dadkana faamiliyada waxaan jecelaynaa ilaahay idi kala qaadin haddii maaragtay kala qaarkaas yimaado in laysu samro in laysu dulqaato in la eego ubadka meesha yaala taasay muhiimaddu tahay marka waxaan jecel lahay walaalaha ayaa daawanaya iyo inta kale sii daawanaysa inay sheergareeyaan oo ay la sheergareeyaan inaan maaragtay dhibaatooyinka waaweyn ee maanta idinku iska celin karta maskaxaan inaan caruurta iska celin karin marka in caruurta loo turo in wadka loo turo in la ilaaliyo in la iskara qabto in la israaco in xumaan la tusaliyo loo turo talabaad Rashid adiga ku haysta community-ga aan ka dhalanay waxa ku badan ha kala tagaan gabadhiyo ninku hays afgaran waayaan ma xuma waa la kala tegi karaa laakiin waxa yimaada ficil wax la yiraahdo argoosashadana waxba iskaga qaadi maysa laakiin waxa ku halaabaya
وعروت اللي ماشي يلا هدي أكلت تكتين بس يقول ممكن جيران قف كستعمل نوشي يسوي الدنيا ولسان كرا لكن واحد إذا كنت حيسافر بربارين تعبيتي سيدي أو بربارين هيدين شو تيرسنا وهيدين بريتولي وهي آباتي عروت وينانيسا والنوشي نقول قد ما كره حريسان خطرة سلمة heesteedan ka helaa ay tiraahdo maxay ahayd rashi haddii geedku gudda iskaga yahay hadduu leeyahay hees noocaasa bay ahayd haddii labada qof ay kala tagaan weligiin gunta iskaga taalin gunta ayaa iskaga taalaa macnaheedu waa taas gunta iskaga taalin waayo ilmihii kursimada way idinka dhaxaysaa maxay tahay ina meel wax ka haysan way idinka dhaxaysaa ina carruurta wax bartaan way idinka dhaxaysaa carruurtii way waaweynaanaysaa way guursanaysaa inantii waa lasoo doonaya inankii waa lasoo doonaya kan la weydiinaya waa aabbaha ti loo soo fariisanaya gurigii waa hooyadii in aabbihii wuu imaanay hooyadii way imaanay kuwan ayaa isku qasbay geedku xagga hoose iskaga xukuman yahay laakiin xagga sare dadku waa kala danaysan kartaa marka muhiimaddu waxay tahay maalmahadaasuna macnihii dantaadana waad wadanaysaa oo haddaad family kale iyo reer kala samaysatay alaashanin ahaanad ama kabadhahaay waxaan leenahay walaal family haddaad samaysatay ama dad kale ama xaas kala samaysatay liis ubadkeeda dayac waayo waxa weeye waa noloshii iyo ubixii cusbaa marka muhiimaddu waxay tahay inaan keergarayno inaan ka wacdigelino iyo inaan u sheegno waxyaabaha ku iman kara ilmaha ku iman kara maaragtay ilmaha yaree maaragtay marka maskaxdiisa fresh ka tahay maskaxdaada iska celinaysa adiga wax kasta iscaaburi qaado waxaad doonto laakiin iyaga farxad tusan yes carruurta in lagu dadaalo familiyada burburay annagu ma jeclin family Soomaaliyeed inuu burburo raallina kama nihin wixii ilaahay isfahansiiyana isfahansiisan way burbureen way dhacdaa laakiin waxaan anagu tale ahaan u soo jeedinaynaa dadkayaga maxay tahay afkaan ku hadlayna fahmaaye waxaan u soo jeedinaynaa xurgufta idinka idin dhex martay carruurta ay saamaynin carruurta ha lagu dadaalo dhaqankeeda dabeecadaheeda bisitaankeeda waxbarashadeeda ha lagu dadaalo farxadda carruurta markasta oo aad korisaan waxa korinaysaan ubax qurux badan dunidan guurka horta waa maxay waa nasiino guurku waa nasiino waxa weeyaan raaxo maasha allah qofka kalaba qofka kale ku asturan yahay waa nolol habi ah oo aad farxad iyo ka dhaxli karto horumar qurux badan aad ka dhaxli karto okay maxaa ka dambeeya in ubad qurux badan yimaado in faraawal qurux badan meesha ka soo baxo faraawalkii haddaad biyeyn weydo wuu dharaya markaa waxaan leeyahay asxaabi faraawalka qofkii ilaahay siiyey faraawil baan ugu magac daray carruurta aniga faraawil baan u aqaanaa faraawilka qofkii ilaahay siiyey ha biyeeyo dharitaanka ha ka ilaaliyo ha ku dadaalo kala tegiina iyo kala maqnaanshihiina iyo idin muuqanin gabadha waxay kugu samaysay iyo kuu muuqanin wiilka wuxuu kugu sameeyey iyo kuu muuqanin hadduu xun yahay carruurtan u dhalay ya marbuu agtaada king ka ahaa madaxweyne ka ahaayo carruurtan uu kaa dhalay berri markaa kala tagteen haddii aad tidhaahdo waa qof xun adiga ayaa xun صح عروضة وحاو شيكين أنا هو حن أكيد رون ما ندي شيء دمر عروض ودمر كنيكي كلاتين أبها وحلي هاي أبها سيدن بوي هاي أبها عين كروها أبها وحلي مسمي حرام عليك وحي أسقط سمايسين أم بيسوي هاي سنة أم بيسقط ما هذا عروض ما خصيص marka qof aabbuhu hadduu xun yahay carruurtiisa marka aad kala hadlayso waa inaad malab uga dhigtaa si aabbahood u jeclaadaan waayo loo bedeli maayo aabbahood waa inay jeclaadaan hadduu xun yahay dusan yahay adigana wiilka waxaa lagaaga baahan yahay haddii hooyadu xun tahay u malayn maayo hooyo Soomaaliyeed baa xun haddii wax ka khaldan yihiin carruurtaada halka hooyadood ku liidato ha tusin quruux ugu buuxi iyo sharaf si hooy carruurtu hooyadood ugu kalsoonaan karto amba ay u jeclaan karto marka aabihiin waa qof tayibaho wanaagsan laakiin waqtigan la kala qaaday carruurtaada haddaad ku tiraahdo waa wanaagii un bay haynayaan meel dee loo mara ma jirto
معنيه اسم العسير سلوك في قفي ما بيجي دلوي أدونا هو لا marka waxa loo baahan yahay in ixtiraam iyo respect wada sameeyo tii maaragtay qadartii iyo calafkii lagu dhamaado laakiin muhiimadu waxay tahay in la dunta xarirta ama wax maaragtay la ilaaliyo ما شاء الله تبارك الله مهمة واتاس فاميلي قروح طبعا فاميلي عروتا دريالية فاميلي يبو إسجعين فاميلي إسكو كالصون فاميلي إسكو أراكتي فاميلي وحكس توضا قبصنايا فاميلي تشعل إن ريوين كودة أم بقولهودة أي كوهم يجين كمينا دالية إلهي هاينا قوضا لغو فاميلي هاقاكسن أو هنوصن ما شاء الله تبارك الله دمنت ويد ودا صامنا انت انا عاوا ان دلا جعلانay waa inta anagu waliba waqti ugu yaraa oo 10 kala ka nimi inta saan dala jeclaanay burburka qoyska ku imanaya inaan wax faa'iido lahayn oo uu yahay un booq caruurta xanuunjinaysa marka aad baan idin soo burburka in yar baan insha Allah ku dafaacanayna dadka familiyada leh haddii qaltaagayna burbursamaya أجياي إسهايا إسهايا معلش سمعوا اعتراض نبي ناس كذا حلا ما أنا ما بين تاسو أنا بين برا ما دارت مهمته حيتهاي نقف كذا وحكينا إياه إن لبض قف إسفهم وعيان إمارة كوكاترا تاسن مهمته صرت أنا كل شيء رشيد وحنو ملايني أنا كارد حكوا فكرة عليها من الأساس كيف رحمة سيل يسكب رحمة أنا جاي ما عارفه أنا مهمته حيتهاي أما أساس أما dadku mar haday nolosha isla wadaagaan neeftoodu wasqowta laakiin muhiimadu waxay tahay caadi waxa wax iska la celinayaa qaadiga number 1 waxa burburiyaa family work haddaan maanta anigu raado hadalkan waxay ku tiriyo xaskaageena xigaaga dambeeyay ku ixtiraamiyay xaq bay kugu leedahay waxay la qaylinaysaa xaq bay kugu leedahay wax ku weydiiso xaq bay kugu leedahay wax isnaafsataan حق بك كل الذين وضعتشتان حق بك كل هذا لا يهرك دوت لكن حب هذا الناس قنعسان ما بحرين وحلسك إسك عنا صنايع النرتش كبدان يا هذا الذي وناكسل يا هذا الذي قبول يمارت كلا دان بينتو ووح قفكو النرتش كسيقا ووح مارت قفكو كلا وبصيقا هذا مارت يعني ومارت قفكو ريسبكت بالانسي صنايع حريق وقرح بدنا سعيد كسيسي لكن هذا العلم يو كتاكتاس كنتو ماشي ما نيد ما جريسو marka qofkan uu ku aaminsan yahay laakiin halka way buqtaa marka waxaan leenahay please talafteeda idinku waan iska ilaalisaan in maartay iska cilin sameeysan oo maartay qof kale uu iska cilin sameeyo talabaad mid baan ku dareeyaa Rashid labada qof inay dush oo iska eegaan oo maxay tahay aragtidooda wada joogto ma aha qabistu ma aha ina maxay heetoy dush oo ka wada joogtaan oo qofkan uu ila joogaa waa ninkaydii anigana waa gabadhiisii intaas wax dhaafsiisan inaan la is odhanin intaas ayay dadku u badan yihiin laakiin muhiimadu waxay tahay halkan in la iska joogo halkan in la iskaga xidhnaado ayaa muhiim ah dusha aad ka wada joogtaan wax macnaa ma samaynayso laakiin waa inaad qalbiga ka wada joogtaan qofkana wuxuu doonaya waa inaad fahmi kartaa kana wuxuu doonaya waa inaad fahmi kartaa qof kastaaba qofka kale geel daaqdiisa waa inuu baran karaa waa laga yaabaa isu dheelitir ma jirto waxaan kugu wariyay ilaahay isaga qaniya qofur raxiim dadka waa kala abuur qof kastaaba boqolkiiba boqol ma aha qof kastaaba waxba ka sica hadduu doono dabeecad xumaado hadduu doono waxaan kugu wariyay dadka hadalka dhigtay qof kastaba waxba ka sica calaamad yar buu wataa calaamadda uu wato qofkaadu waa inaad barato صح boqolkiiba boqol ma noqonayo qof kale boqolkiiba boqol ma noqonayo wala iskuma dheeli iskuma tirin laakiin muhiimadu waxay tahay mid baa buuxa waxaad ugu samaraysaa jira qof aadiyad oo in qofka waxaad ugu samarayso aad maaragtay aad qofka yeelan kartaa calaamadda uu leeyahay sitana inaad fahmi karto haddaad boogtiisa fahanto qofka oo boogtiisa dhaydo xanuun kuguma noqonayso marka qofkii waad fahantay wixii already halka uu maaragtay problemkiisu yahay laakiin qofkii waa isfahmaysaa intiisii kala dhan marka qof walba wuxuu leeyahay adduunka ilaahay ku yaro gaana laakiin iimaha kala muuqda oo iimihii baa maaragtay noqonaya maaragtay wax maaragtay
raatreebtaa iyo waxay dadku yaqaanaan ceeb tahay inuu qofku jecel yahay qofku xanaaqi badan yahay inuu sanka ka saaran yahay inuu qofka ku taagan yahay hadda qof si kala loogu dhigay qof baa jira marka dadku dusha ka arkaan qof dabeecad u yaqaanaan laakiin hadda markuu aad guriga aad qofka friend isla noqoto amba wax idin dhex maraan qof ka wanaagsan aanu jiro marka rag iyo dumar bay musaanad dad wanaagsan isla markan negative iyo wajigiisa ha u dhawaan haddana weligaa ismalihiid ka wada saaxiibeysa marka dambe qofka gashaana saaxiibtaana qof ugu wanaagsan marka muhiimaddu waxay tahay war dushayaan la iska baran hoosta ha la iska barto inside-ka hoose la isu furo waa isfahmaysaa Soomaaliya iska celinta jirto in sha Allah cudurna soo haddii ay spam garaysaan oo qof kastaba qofka kale uu hoosta marinaya amba aan waxba u ogolayn waxba ma shaqaynayaan waa ina wax isu ogolaataan waa ina idinku ay isgarabsan karaysaan waa ina isku aragti tihiin waa in waxa xun idinka dheeriyin taasaad family qurux badan lagu noqonaya laakiin haddii naga daa Soomaali may dhegeysi la'aanta iyo hadalka qof kale iyo marka ku leeyahay xitaa qofka hadalka dhibsanay inaad maaragtay qofkii maanta ku soo jeedin inaad wax yar u arkin focuska si inaad soo jeedo focusi qofka inaad u soo jeedo oo interest gareynayso waxa uu ku yahay haba yar hataa hadduu qaldan yahay maxaa sameeyaa hadduu qaldan yahay ما أدقنا خدم ميست خلط مسح وين تقنعسا قفكي دجيسا ما كذا وحكوري إما كمسلنا كلا وحدونا يا ما تمسل كوسق قابة إنه واحد عقل قال هاينكس يقول حدونا هنا كوسق نقولنا إسلا عاوة بين كوسق نقولنا كوسق نقولنا وأفريقيا وكوسق قابة واحد عقل قال قليل مدي إكسامبل أنا أكتبه هنا ما وحي بها هنا ممكن لكن وين سميسا أنا حيته وأنا أحترم معها أنا كده واحد هذا لكن ترى واحد سيدي إيمانيسا سيدي إيمانيسا ما هي سحلكي حلقة يا وين أقف كحلقي ساعة يا ده وقته وين الدكان شو حكودي ساعة ما كواه خبصتها كاستقف سينا ده أيام ميل بكرة دكان شو ميل بكرة دقيس كميل بكرة دقيس هدانو شيء وحصلنا يعني شفته isku kalsoonida meel lagu gaaraa qofkaas waxa uu sameyn karaa iyo ma sameyn karo way jiraan dad aad oranayso in qof hebel baa waxa sameeyay wallahi qofka meey kama suurtoodo ayaad oranaysaa amba way ka suurtooda exactly ya marka dadku qofkaagu inuu ku xisaabsanaataa position uu ku taagan yahay waa inaad barataa marka saaxiibo waxa leeyahay inta doonaysa inay reer wanaagsan samayso war asaaska reerka marka hore hagaajiya war farxad iyo wanaag isugu kaalaya war qofka dabeecadihiisa iyo dabeecadahaada inay isleeyihiin iska baadh haddii aydan intaa iska baadhin oo ilaahay isu kingeeyo isguursataana war dibka hagaajiya xaaladiina isbarta isu soo dhawaada kuwa la isla xanta amba la kala xanta ha noqonina maasha Allah dad tugada aan wada noqda inta cusub ee imika soo kacaysa reeraha cusub diyaarka oo ana kula talinaya intii horena waxaan leeyahay war salaada isku dhawrta yes waxaad leenahay waan jecelahay walaalaha iyaga insha Allah nadaawada waxaan rajaynaynaa in insha Allah sii share gareysaan ina maaragtay maxay haday subscribe iyo like saartaan waxaan rajaynaynaa in programku insha Allah uu socon doono PPP triple P insha Allah PPP وسعون دونا إن شاء الله وقت كستان وقت هايننا نموي دونتان إن شاء الله هدي إلهي إله وحنا نوع ماشان أن أصل فريسان إن أن بعض الله لنا وعطت كي كم تعاون يا لايكتا وحقوري شيرتا إنتوا حقين فرطين بحالي ديسي ناكسي مركا ويل يربان تعود إله دع كسية دع سمعي كسمعي دع كسية مركا وربحش دع نقدر راحة مركا إن شاء الله غير بالبلدي رجينا هبي ونفسن هتيجي أصحابي ولا الليان مالي ونفسن تيمان تاي هبي ونفسن تيمان كل تاي وإن شاء الله كل يلا إن شاء الله عادي هذا كتشاء الله هاي نقول سلام قاليا وحد لنا هاي الله فاينو بلنا أنا حتى إلى اللقاء نروح لنا هبي ونفسن السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.